وحوي سدي شركة كادين واحد جراه قاعدين شرعي تراكم هو قشنك وميلها بنانا دكسوت هذه قاعد الله قاعد كستون وعاصة والله قبطه waxay noqon doontaa in la saaro ganaax culus waana xaraan inaanu gaari aan sharci u lahayn oo lahayn shati shaqadooda shaqeeya intuu qashin magaalada ka qaado meel aan sax ahayn u dhigo dadweynaha waxaan ugu baaqaynaa laga yeeli maayo qof ilaahda qashinka laga qaadi maayo oo ana la geenaya saa la socotaanba sharciga wuxuu ka socdaa baarlamaanka intaa waxa lagu sii shaqeyn doonaa baylowgii dawladda hoose lahayd oo qof kastoo qashinka diiday inuu dhiibo shirkadaha lagu hawlgeyn doonaa muxuu ahaa maxkamadaha waxa kale inuu isla qaadanay saaka jidka 150 in la baneeyo halkan waxaan baaq uga dirayaa cid kastoo gaari ka yaalo iyo cid kastoo wax ka yaalaan muddo 2 toddobaad gudahooda inay kaga qaataan wixii kaga yaala waxa laaliyo wixii halka loogu yimaado 2 toddobaad gudahood waxay noqon doontaa inay noqoto waxay dawladda hoose ka jiido aan magdhowna laga bixin doono iyadoo inta ka hadhaynaanu hay'adaha sharciga soo marin doono xoolaha looda iyo geela 2 toddobaad gudahood in qof kasta uu kaga saarto magaalada degmo walibana halkay joogaan ay soo diiwaan geliso ariga muddo 2 bilood gudahooda in lagala baxo magaalada sida ka muuqata warbixintii madaxa jaasku inoo keenay waxa weeye ardayadihii sanadkii hore 150 ka badan ayaa guud ahaan marka la sugeeyo hadhay waxa weeye iyadoo ganaaxeedii wadata degmo waliba inay goyso qof kasta oo la habsaamay cashuurtana inuu ganaaxii sidii sharciga ahayd u kaysto inta raaci aynu dhamaynayno suuqa hoose waxay noqonaysaa bileysku inay cid kasta oo banaanka degan soo ganaaxana laga rabo taliyaha bileyska dawladda hoose aad baa u mahadsantihiin